Assalaamu calaykum. Halkan waxaan kugu soo gudbinayaa warbixin ku saabsan dalka Sacuudiga oo uu hormuud ka yahay ninka dhalinta yar ee lagu magacaabo Maxamed bin Salmaan. Sacuudiga waa dal Islaam ah, sidaas oo ay tahay sanadihii u dambeeyay ninka sida dadban u maamula dalka Sacuudiga ee Maxamed bin Salmaan wuxuu sheegay in uu doonayo inuu dhabaha u taago Islaam casri ah. Boqortooyada dalka Sacuudiga ayaa qorsheynaysa dhismaha magaalo ay ku bixayso 400 milyan oo lacagta Ingiriiska ah, taas oo uusan sharciga Islaamka ka shaqeynayn una gaar ah dadka reer galbeedka. Magaaladan waxaa laga dhisayaa xeebta Badda Cas, waxaana ay dowladda ugu gol leedahay soo jiidashada dalxiisayaasha reer galbeedka ah. Waxa ayna qayb ka tahay qorshaha 2030 oo ku doonaya in Sacuudiga ka wareego ku tiirsanaanta dhaqaalaha shidaalka, kuna wareego maalgashiga iyo dalxiiska. Magaaladan waxay noqon doontaa mid ay kaliya gaar u tahay dadka reer galbeedka. Sacuudiga ayaa waxa uu martigelinayaa mid ka mid ah ciyaaraha ugu dhaqaalaha badan adduunka oo ah feerka culus, una dhaxaysa Anthony Joshua iyo Andy Ruiz Jr. Ciyaarta ayaa waxay dhacaysaa Sabtida soo socda kana dhacaysa Riyadh, waxaana ku bixaysa 66 milyan oo banka Ingiriiska ah. Magaaladan waxaa loo bixin doonaa Neom, waxaana laga dhisayaa gobolka Tabuk ee waqooyi galbeed Sacuudiga, waxaana ay saarnaan doontaa Badda Cas, gaar ahaan sohdinta uu Sacuudiga la wadaago dalka Masar iyo Jordan. Aragtida dhismaha mashruuca magaaladan waxaa 2 sano ka hor hindisay Maxamed bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha Sacuudiga, ahna wiilka uu dhalay boqorka hadda talada dalka Sacuudiga haya ee Boqor Salmaan. Magaalada Neom waxa ay u shaqeyn doontaa si ka madax bannaan Sacuudiga intiisa kale, waxaana xorriyad dheeraad ah la siinayaa haweenka sida taageerayaasha ciyaaraha iyo shaqaalaha reer galbeedka. Kama shaqeyn doona sharciga Islaamka oo hadda ah dastuurka dalka Sacuudiga. Dal dhan oo Islaam ah kuna yaalaan labada meel ee ugu qiimaha badan dunida, dadkiisuna yahay 100% dad Islaam ah. In uu madaxdiisa sidaas sameeyo waa wax ay ka dambeeyaan gaalo. Ilaah waxaan ka baryayaa inuu xaqana tuso insha Allah. Haddii aad nagu cusub tahay waxaan ku leeyahay soo dhawow. Warkaasaan u bogaaniga waa kuwa badangala balweenta yaan laga boojeenin. Warkaasaan u bogaaniga waa kuwa badangala balweenta yaan laga boojeenin.